السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا kanaalkeena himilada nolosha. noloshaada maalinta aad ku fikirto maareynta waqtiga waa marka koowaad ee aad garato qiimahaaga shakhsi ahaaneed. sababtoo ah qofka qiimihiisa garanaya waqtigiisa kuma loo furo kumana lumiyo macna daro. shayga xiisaha leh ee halkan ku jira waxa weeye inaad ka fikirto habkii iyo hawlqabadkii aad ku maareyn lahayd waqtigaaga adiga oo ku saleynaya baahiyahaaga nololeed, firaaqadaada, tamartaada iyo hadba inta tallaabo ee aad rabto inaad u qaado dhanka guusha. haddaba waqtigaaga ma maareyn kartid adiga oo aan lahayn qorshe qoran iyo qodobo hawlqabad oo joogto ah. waxaana muhiim ah inaad ugu horreynba ka fikirto wixii aad waqtigaaga kaga faa'iideysan lahayd. dad badan oo inaga mid ah ayaad arkaysaa iyaga oo ku odhanaya waqtigayga waan maareeyaa oo guriga kama soo baxo, balse marka aad weydiiso waxa uu qofkaasi guriga ka qabto kama helaysid wax jawaab ah oo aad ku qanacdo. haddaba daawada halkan waxaa kugula wadaagi doonaa 7 qodob oo wax ku ool u ah maareynta waqtiga ee soo dhow. qodobka koowaad, samayso jadwal maalinle ah. haddaba si taas loo helo waxa waajib ah in aad buug iyo qalin u qaadato sidii aad u samaysan lahayd jadwal ku salaysan 7 maalmood ee wiiga, adiga oo markaa si wacan uga fiirsanaya xilliga ugu habboon ee aad qorshahaaga fulin karto. bilowga koowaad, maareynta waqtiga waxa aynu bilownaa inaga oo xamaasadaysan una hanqal taagayna in aynu hawl dheer muddo yar kusoo gabagabayno. waxa aad si weligaa ka feejignaataa in aad isa saarto hawl aanad culayskeeda qaadi karin. bilowga koowaadba si degan oo miyir qabta u deji jadwal kooban oo ay dhammaan ku xusan yihiin waxyaabihii aad qaban lahayd. taasi waxa ay kaa saacidaysaa inaad qorshahaaga fuliso adiga oo aan wax dhib ah kala kulmahaynin. qodobka labaad, cayin oo garo halka aad juhdigaaga iyo waqtigaaga ku bixinayso. qodobkani waxa uu ina barayaa ka hor intaynaan waxba qaban in la inooga baahan yahay in aynu garanno hawsha ama shaqada aynu waqtigeenna gelinayno. waayo haddii aanay hawlgaarhi kuu cayinayn waqtigaaga ma maareyn kartid. taasina waxa ay dib kuugu soo celinaysaa halkii aad markii horeba go'aankaaga ka bilowday. qodobka saddexaad, weligaa iska ilaali laba gacmaynta ama waxa loo yaqaano multitasking. inaad dhowr hawlood oo kala duwan jadwalkaaga geliso runtii fulintoodu waa ay kugu adkaanaysaa, waxaana ay maskaxdaadu ku daalaysaa kala doorashada hawlqabadyada ku yaala, waxaana ay tamartaadu ku lumaysaa adiga oo aan midkoodna dhammaystirin. haddaba si aad taa uga hortagto markiiba qabo hal hawl toddobaad kasta ama bil kastana qorshahaaga halka ugu muhiimsan ka abaar, hana ku soo dhex darin hawlo kale oo iyaguna muhiim ah balse aan waqtigoodii la joogin. isku day inaad ahaato qof nidaamsan oo hawlihiisa oo dhammi u habaysan yihiin, jadwalka dhexdiisana ay ugu qoran yihiin, adiga oo garanaya hawl kasta iyo meesheeda iyo waqtiga la qabanayo. inay hawlahaagu ku kala nidaamsanaadaan waxa ay ku siinaysaa tamar badan iyo yididiilo hor leh. qodobka afraad, horumarinta hawlqabadka. qodobkani waxa uu ina barayaa in hawlaha inoo nabadgaraysan aynu u soo kala horraysiino sida ay u kala mudan yihiin inooguna kala muhiimsan yihiin. waayo haddii aad maalintaa qabato hawlqabadka ugu muhiimsan waxa aad qabatay shaqo wanaagsan, waxaana aad u dhowaatay himiladaadii dhinaca guusha. qodobka shanaad, qabo hawsha ugu adag. mar kasta hawlaha aynu qabanayno waxaa jirta hawl aynu ka maagno oo aynu inta badan ka meermeerno. hawshaasina badanaa waa hawsha haddii aad isdhaafiso ama aad qabato aad dareemi karto nafis iyo deganaan. haddaba isku day in aad hawsha cuyubka ah ee adag aad uga horraysiiso kuna bilowdo inta xigtaana, markaas waa ay ku fududaanaysaa si dhib yarna waaad u dhammaystiri kartaa. qodobka lixaad, barashada diidmada qayaxan. kol haddii aad waqtigaaga maaraynayso waxa hubaal ah inay kaa soo dhex gelayaan hawlo kale ama uu qofku soo wacayo. haddaba taas si aad uga gaashaamato ugana hortagto waxa aad barataa sida loo yidhaahdo maya. inaad barato ereyga maya ma aha ceeb, mana aha wax qofka kale dhaawac gaadhsiinaya. waa se gabaad aad kaga dhuuman karto dhammaan wixii kaa dhex gelaya hawlqabadkaaga. u sheeg qofka ku soo wacaya inaad hadda hawl muhiim ah ku jirto. qodobka 7, waqti kororsi.
inta aad hawsha waxqabadka aad go'aansatay ku dhex jirto, haddii ay tamartaada iyo xiisahaaga hawshu sii laba jibaarmaan, waxaa hubaal ah inaad heshay fursad kale oo aad ku dhammaystiri karto qabyadaada. Sii waqti dheeraad ah si aad si qoto dheer ugu sii talax tagto howlqabadkaaga ugana faa'iidaysato waqtigaaga. Mararka qaarkood ayaa waxaa jira in ay niyaddu dhulka kaaga dhacdo ama aad karaar jabto adiga oo qorshihii aad dejisay fulintiisa ku dhex jira. Markaana waxaa lagama maarmaan ah inaad hawsha aad gacanta ku hayso joojiso, isla markaana aad ka kacdo oo soo yaro wareegto si aad u qaadato tamar cusboonaysiin labaad. Daawade, haddii aad soo gaadhay dhammaadka barnaamijkan, aad iyo aad waad mahadsan tahay. waxaan mar labaad ku xasuusinayaa inaad channelka subscribe saarto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.